السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كامر كلا سود وواده أدي أدو من سنتين مانتا وأربعة وأنا كودة بشة طبنادي أكتوبر سنة كلابا كون إيشانيا لباتنك مقال كم حربا إن ندي كل وذاقه غير مينيسوتا مسوق ماسوقي حد إميجريشن كأيو سوق لي شلي مدحة واحدة USCIS تا دولة أمريكان كأقابل سن دينا إميجريشن كا أي شرج رائد كقبتي مقالة سين بول waxaana uu ka hadlay baaritaan ku dhawaad muddo 2 toddobaad laga waday magaalooyinka mataanaha ee St Paul iyo waliba Minneapolis oo la xiriira musuqmaasuq dhanka immigration-ka. Haddaba imisa case oo musuqmaasuqa ayaa la baaray, imisa qofood ayaa la xiray, imisa case ayaa ICE lagu wareejiyay. Arrimahaasi oo ayaan idinla wadaagayaa iyo hadda kadib kiisaska dacwadaha la xareynayo oo baaritaana dheeraad ah lagu sameyn doono dadkana xitaa guryahooda loogu tagi doono sida haddaba dhacday oo su'aalo lagu weydiin doono arrimahaas oo ayaan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaad Minnesota toddobaad kasta musuqmaasuq cusub ayaa ka soo ifbaxaya saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay saddex musuqmaasuq oo kala duwan ayaa la soo bandhigay mid waa kii Medicaid-ka oo 8 qof oo 6 kamid ay Soomaaliyiin dacwada lagu soo ogay midna waa kii xanuunka autism-ka oo qofkii ugu horeeyo dacwad lagu soo ogo ee haweeney Soomaaliya noqotay haddana waxaa shalay lagu dhawaaqay in musuqmaasuq dhinaca immigration-ka dacwadaha la xareeyo ah ay waaxda USCIS ay sheegtay in baaritaan ay ku sameynaysay ku dhawaad 2 toddobaad ee la soo dhaafay USCIS waa waaxda dowladda Mareykanka u qaabilsan immigration-ka qofku markuu dacwada xareeyo waa hay'adda approve kareyso isla markaana baaritaan ku sameyso haddaba waxaa madaxa waaxda USCIS ninka la yiraahdo Joseph Edlow uu shalay sheegay in laga bilaabo 19 bishii la soo dhaafay ilaa iyo 28 ay baaritaan ka sameeyeen howlgal loogu magac daray Operation Twin Shield maadaama labada magaalo ee mataanaha St Paul iyo Minneapolis Twin Cities la yiraahdo in howlgal ay ka wadeen 19 ilaa 28 bishii la soo dhaafay waxaana ay sheegeen ilaa iyo 1,000 kiis oo immigration ah in baaritaan lagu hayay 1,000 kiis 275 kiis oo kamid ah ayaa diiradda la saarayay 42 kiis waxaa lagu wareejiyay ICE oo waxaa la sheegay notice to appear oo NTA loo yaqaan in ICE ay u yimaadaan sidoo kalena waxaa jirta in 4 qof la xiray marka waxyaabaha diiradda la saarayay waxaa kamid ahaa in qofka dacwada xareeyay gurihiisa loogu tago 2 maalin ama 3 maalin ka hor gabar Soomaaliya Minnesota iga soo wacday waxay tiri ninkeyga ayaan dacwad u xareeyay anigoo shaqo jooga ayaa la soo wacay waxaa la yiri waxaan ka tirsanahay immigration-ka gurigaada ayaan hor taaganahay bal noo imaaw waan yaabay wali arintaas aniga xitaa wali hore ma aanan u maqlin gabadhu markii ay weydiisay laakiin hadda markii aan shalay baaritaanka natiijada ka soo baxday aan ogaaday waxa ay cadaatay in dadka guryahooda loogu tagay waan u imaaday ayay tiri su'aalo ayaa la weydiiyay ninkaada xaguu jooga walina xitaa kiiskayga lama approve gareynay jiro USCIS to yaala marka hadda kadib marka aad dacwad xareyso gurigaada ayaa lagugu imaan doonaa site visit Europe waxaan ka maqli jiray ninka dharkiisa iyo kabihiisa iyo waxaasi waa la qariyaa laakiin hadda dadkii isugu dacwoon jiray waa walaalkay qof walaalka ah ama walaasha ah aad ninkayga ugu dacwoon jirtay ama leen la kala gadan jiray ama arrimihii musuqmaasuqii waxaa la yiri hadda waa la isku fahmay arrintaasi ma jiri doonto dadka sharci darrada ah oo iyaguna qof intuu wadanka sharci darro ku soo galay qof kala guursanaya si uu sharci uga helo arrintaasina sidoo kale waa la isugu yimid marka waxaa lagu bartilmaameedsanayay kiisaskaasi oo dadka guryahooda ayaa xitaa loogu tagayay ama waa loo wacayay waxaa la dhahayay imaw meeshaas interview ayaa lala yeelanayay USCIS waxaa ku heliyay arrintan ICE FBI iyo waliba DAA-da ayaa ku heliyay marka kiisaska diiradda la saarayay waxa ahayn dacwadaha immigration-ka ee la xareeyay ama qofku wadanka sharci darraha ku soo galo amaba sidoo kalena dadka wadanka joogay oo dadkooda u dacwoonaya ha ahaadana kiisaska USCIS yaalo oo dhan sababta waxaa la weydiiyay horta Minnesota maxad uga bilowdeen waa markii ugu horeysay baaritaan noocan oo kala guud ahaan wadanka laga sameeyo Minnesota ayaan ugu horeysay waxay yiraahdeen xogta aan hayna ayaa waxayna tustay in musuqmaasuq ballaaran uu ka jiro gobolka Minnesota oo dhinaca immigration-ka marka waxyaabaha diiradda la saarayay waxaa kamid ahaa kiisaska applicationada la xareeyay oo dadku ay xareysteen iyo dadka xareeyay oo immigration-ka ayaa diiradda la saarayay waxaana la ogaaday in qatar xoogan ay ka jirto
oo aan iskeenaynin qofka dacwadan xareeyay iyo waliba dadka loo xareeyay sidaa darteed si loo ilaaliyo shacabka Mareykanka oo argagixisada ajnabiga ah looga ilaaliyo ammaanka qarankana sidoo kale iyo badqabka dadweynaha Mareykanka khatar ku imaanta looga hortago ayaa howlgalkan loo sameeyay waxaana madaxa USCIS Joseph Edlow uu sheegay inuu guul ku soo dhamaaday isla markaana 1000 kiis la bartilmaameedsanayay oo musuqmaasuq looga shakisan yahay sida iyo waliba in kiisaskaasi aysan u qalmin in la ogolaado oo USCIS ay ogolaasho siiso marka waxaa jirto 900 oo site visit waxaa la yiraahdaa qofka in ama shaqadiisii loogu tago ama gurigiisii loogu tago dad dacwadu xareysan tahay kadibna su'aalo la weydiiyo amaba in person interview oo dadkaasi loo wacay oo interview lala yeeshay marka waxay yiraahdeen waxaan helnay cadeymo la xiriira in musuqmaasuq baahsan oo immigrationka uu jiro iyo sidoo kalena dad aan u hoggaansamaynin sharciyadii immigrationka isla markaana khatar ku ah ammaanka qaran shacabka Mareykanka iyo waliba ammaanka qaranka Mareykanka sida darteed waxyaabaha la helay waxa kamid ah oo sida aan codkiisa idin maqashin doono ninka USCIS madax ka ah waxa uu yiri waxaan helnay nin soo sameystay shahaado dhimasho oo been ah xaaskiisii waa dhimatay ayuu yiri Minneapolis ayayna degan tahay 5 caruur ayuu haysaa Kenya ayuu shahaadada ka soo sameystay $100 ayuu ku soo sameystay xaas kalena Sweden ayuu u degan tahay 3 qof ayuu haysaa kulay qofkaasi waa Soomaali labadan sawir oo la soo bandhigay labada qof oo la xiray qof kamida qamiis ayuu wataa cad qofkaasi inuu Soomaali yahay uu sii jeedaa lama garan laakiin inuu Soomaali yahay ayaan u maleynaya waxyaabaha kale oo la helay waxa kamid ah in dadku ay marriage fraud wax la yiraahdo ay sameeyeen sida aan dadku ay ku dhaqmaan waan ognahay laba qof oo walaala in leeman la kala gato amaba laysaas la isugu dacwoodo arrintaasi hadda kadib waa la isugu yimid waxa kamid ah wiil uu dhalay nin argagixiso looga shakisan yahay ama la og yahay oo isaguna visa intuu ku yimid Mareykanka iska joogay sidaas darteed waa la qabtay isagana hadda waxa lagu guda jiraa wadankiisii in loo celiyo waxa sidoo kale jirta in dadku si qaldan ay u adeegsanayeen viisaha H1B iyo waliba F1 iyadoo sidoo kalena ay jirto dadku in ganacsiyo ay ka shaqeeyaan ay sheegayeen laakiin aysan ka shaqeynin iyo viisayaasha qaarkood inay waqtigeedii dhaceen ka bacdina ay iska sii joogeen arrimahaasi oo idil waxa uu yiri waxyaabaha aan helnay ayay ka mid tahay waana musuqmaasuq balaaran waana sii wadi doonaa baaritaanka isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri I'm incredibly pleased to be here today to announce the successful conclusion to Operation Twin Shield, an enforcement effort of U.S. Citizenship and Immigration Services. Since September 19th, officers from our Fraud Detection and National Security Directorate, working in teams, have conducted over 1,000 site visits across the Minneapolis-St. Paul area as part of this operation. What they found should shock all of America. Focusing on a list of over 1,000 target cases involving more than 900 individuals, our officers encountered blatant marriage fraud, visa overstays, people claiming to work at businesses that can't be found, forged documents, abuse of the H-1B visa system, abuse of the F-1 visas, and many other discrepancies. Over the course of the operation, our officers found indication of fraud, non-compliance, or public safety and national security concerns in nearly a little less than 50% of the cases interviewed. We found troubling patterns with the Uniting for Ukraine program that should have raised serious concerns under other administrations, such as an individual filing to sponsor more than 100 aliens, and organizations sponsoring hundreds. We are continuing to investigate these cases. Some of the other troubling cases that our officers found. In one case, officers identified an alien who had overstayed his visa waiver, who was the son of a known or suspected terrorist on the no-fly list. He had previously been found to have engaged in marriage fraud, which resulted in the denial of several immigration benefit requests. He was arrested and is now presently being returned to his country of origin. In another, an individual admitted to obtaining a fake death certificate in Kenya for just $100 to prove he was no longer married. In reality, his wife is alive, living here in Minneapolis, and is the mother of 5 of his children. And incidentally, he has another wife living in Sweden with whom he has an additional 3 children. sidoo kale madaxa waaxda USCIS ee dowladda Mareykanka u qaabilsan immigration-ka waxa uu yiri waxaan doonayaa shacabka Mareykanka inaan u sheego in aan ku dhawaaqnay dagaal ka dhan ah musuqmaasuqa dhanka immigration-ka sidaas darteed waxa uu yiri qof kasta oo doonaya inuu xadgudub ku sameeyo immigration-keena tilaabo kasta oo aan kula dagaalami karno ayaan kula dagaalamayna arrintan hadda ayay bilaabatay Minnesota waa wajigii ugu horeeyay laakiin guud ahaan wadanka ayaa laga sameyn doonaa sidaas darteed waxa uu yiri dhamaanba kiisaska hadda
USCIS ta yaalo dacwadaha xariisan dib u eegis ayaan ku samayn doonaa dhammaantood dokumentiyadaasi oo idil waxaana uu sheegay hadda qof kasta oo doonaya inuu xadgudub ku sameeyo ama musuqmaasuq uu ku sameeyo immigrationka ku kaco musuqmaasuq dhanka immigrationka ha ogaado inuu la kulmayo saraakiisheena immigrationka ama FBI-da ama ICE-ta ama CBP-da isagoo sidoo kalena xaqiijiyay xitaa qareenada iyo dadka oo preparationka sameeyo inta badan dadku markay wadanka sharci darro ku soo galaan case preparation koox la yiraahdo ayaa jirto oo looyarada la shaqeeyo marka wuxuu yiri dacwad ayaan ku soo oogi doonaa waana ciqaabi doonaa dadka aan beenta sheegaya oo loo xareynaya dacwadahaasi qareenadooda iyo kuwa waliba u diyaarinaya dhammaantoodba waa la ciqaabi doonaa isagoo arrimahaasi ka hadlayayna mar kale waxa uu yiri I want the American people to know that we are declaring war on immigration fraud. We will continue to pursue those who seek to abuse our immigration system using every tool at our disposal. This operation, Twin Shield, is just the first phase of what we are looking at. The critical information gathered, the fraud patterns uncovered, will help us to combat fraud at the next level. We now begin the process of analyzing, cross-checking, reviewing cases using these results. These investigations will help us determine the next steps in many cases. We will be looking at grants of immigration benefits already given. We will be looking at other patterns, and we will be reopening, re-examining benefits to determine whether rescission, revocation is appropriate in any of these cases. Additionally, I would say right now that if you seek to commit immigration fraud in this country, you will find yourself meeting with our officers at USCIS. You will meet officers within our federal partners at ICE, CBP, FBI, DEA, whoever is working with us. And you will find yourself not only without benefits, but you will find yourself prosecuted. We will continue to tirelessly work with the U.S. Attorney's Office here in Minnesota, as well as in every other jurisdiction, to make sure that these cases are treated as they should be, and that aliens, attorneys, preparers, others who engage in immigration fraud are properly punished. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idin la sidaa iyo nabadgelyo